munaasabad loogu dabaaldegayay xuska 20 guurada xafiiska xusbiga kulmiye dalka Norway iyo sidii loo dardargelin lahaa xusbiga ayaa lagu qabtay xarunta xusbiga kulmiye dalka Norway halkaas oo ay ka soo qayb galeen gudida fulinta ee xusbiga kulmiye dalka Norway waxaana hadaladoodii kamid ahaa 20 guuradii ka soo wareegtay asaaskii xisbiga kulmiye haddana laanta Norway oo laantii ugu horeysay qurbaha wadamada dibadda ee Yurub laga furo gudideeda fulinta ee halkan isugu nimi marka waxaan doonaynaa marka ugu horeysa halkan aan xisbiga kulmiye guud ahaan meel kasta ay joogaan dabadii gudooba aan ugu hambalyeeyno 20 guurada ka soo wareegtay asaaskii xisbiga kulmiye halkan waxaan ka salaamanaa madaxda xisbiga ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenada xogayaha iyo dhammaan madaxda xisbiga kulmiye garabka haweenka dhalinyarada dhammaantood hambalyo iyo salaam baan u dirnaa meel kasta ay joogaan inaan isxog wareysano dardargelin xisbiga kulmiye sidii aan garanaysaa muddada aan kala maqlay sidii wixii imika ka dambeeyay xisbiga loo dardargelin lahaa shirweyne aan u qabsan lahayn arrimahaas oo dhan baan isla soo koobnay si wanaagsan oo natiijo fiican leh ayaa noogu soo dhamaatay waxaa maanta farxad noo ah in aan ka soo qayb galnay 20 guuradii xisbiga kulmiye ee laanta Norway marka anigii gudigiiba xagga wada fadhinaa waxyaabo badan oo ka wada hadalnay insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan xisbiga sidii loo dardargelin lahaa horumar iyo xagii jooga kasii dhaqaaqi lahay ayaan ka wada hadlaynay meel fiican oo inoo maraysaa insha Allah guul baan rajeynayaa wax maanta noo qabsoomay shir aanu ku dardargelinaynay howlaha laanta xisbiga kulmiye ee laanta Norway waxaanu jaaniska uga faa'iideysanaynaa inaanu madaxda iyo dhammaan xubnaha halkan waxaa isugu nimid xisbiga kulmiye laantiisa Norway oo ka wada hadalnay sidii insha Allah tacaala u dardargelin lahayn xisbiga kulmiye iyo hawl maalmeedkii caadiga ahaa gudida filinta xisbiga Norway xisbiga kulmiye Norway waxaan aniguna doonaya insha Allah tacaala fursadan ka faa'iideysto oo hambaliyeeyo shacbiga Somaliland khaasatan taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo madaxda dalka ugu horeeya madaxweynaha dalka mudane Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo kabinetka la shaqeeyaba waxaa maanta aan halkan ku kulannay dhammaanba gudidii fulinta ee xisbiga kulmiye waa laanta Norway waxaan ku qabsanay shir ballaaran oo aan kaga wada hadlaynay arrimaha iyaga gaarka ah ee dalka Norway iyo sidii aan u dardargelin lahayn xisbiga kulmiye waxaan noogu soo dhamaaday si aad u qurux badan oo wanaagsan iyo dhig cusub aan maanta ku shubnay waxaan halkan maanta isugu nimidnay shir ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan gudida fulinta ee laanta Norway ku kala fiirsan daafaha Norway shirkaasi oo ujeedkiisu ahaa dardargelinta iyo hawl maalmeedka sidii uu si caadi ugu soo noqon lahay maadaama lagu jiray waqtiyo xanuun inaanu sidii caadiga ahayd aanu dib ugu soo celino lagoo ka kooban gudidii fulinta ee xisbiga kulmiye ee laanta Norway marka horeysa inaan u hambalyeeyno oo aan bogaadino 20 guurada ka soo wareegtay asaaskii xisbiga xaakimka kulmiye waxa kale oo shirka ugu daaraa oo aan isku nimid dardargelinta howlaha xisbiga aad iyo aad baan idin salaamayaa oo hambalyeeyaa waxaan leeyahay hambalyo Maxamed Jaamac Aliif TV qaranka Oslo Norway